kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray aynu ku bilaabnay dalka Itoobiya militariga Itoobiya oo galay magaalo ka tirsan gobolka Tigray waxaa jira warar sheegaya in militariga federaalka Itoobiya laga yaabo inay gudaha u galeen magaalada Alamata oo ah goob lagu murunsan yahay oo ku taala koonfurta gobolka Tigray talaabadan ayaa haddii ay dhab tahay noqonaysa markii ugu horeysay ee ciidanka dowladda uu hogaamiyey Abiy Ahmed dib cagta u saaraan aagagaasi tan iyo xagaagii lasoo dhaafay ee bartamihii sanadkan xoogaga Tigray ayaa markii ay ka baxeen Amhara iyo Afar waxaana la rajeynayay in la gaaro xabad joojin afhayeenka Tigray Getachew Reda oo wareysi siiyey BBC-da ayaa dalalka adduunka uga baaqay inay xukuumadda Addis Ababa ka dhaadhiciyaan qaadashada xal siyaasadeed xukuumadda Abiy Ahmed oo jawaab ka bixisay go'aankii lama filaanka ah ee TPLF xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku gacan sayrtay go'aanka ay ku dhawaaqeen mucaaradka Tigray ay kaga baxeen gobolada deriska la ah ee Afar iyo Amhara waxaan hadda dhamaystirnay ka bixitaanka ciidamadeena ee gobolada Amhara iyo Afar talaabadan lama filaanka ayaa dhabaha u xaari karta xabad joojin la gaaro kadib 13 bilood oo dagaal qaraar ah waxaan ku kalsoonahay in ficilkeena geesinimada leh ee ka bixitaanka uu noqon doono bilowga nabadda ayuu qoray Debretsion madaxa xisbiga TPLF oo ah xisbi siyaasadeed gacanta ku haya inta badan gobolada waqooyi ee Tigray waxaa sidaasi Twitter-ka ku qoray afhayeenka TPLF Getachew Reda hase yeeshee afhayeenka Abiy Ahmed Bilene Siom ayaa ku gacan sayrtay ku dhawaaqista mucaaradka oo ay ku qeexday mid lagu qarinayo guuldarrooyin military TPLF waxaa ku dhacay khasaarooyin weyn toddobaadadii dhawaa sidaas darteedna waxay sheegayaan dib u gurasho xeeladeed si ay u qariyaan guuldarrooyinkooda ayay u sheegtay AFP imankana Soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo iska horimaad u dhaxeeya ciidanka amniga Puntland iyo ciidamada daacad u ah agaasimihii hore ee ciidanka BSF Maxamuud Cismaan Diyaano labada dhinac ayaa isku adeegsaday rasaas culus oo laga maqlayo xaafadaha magaalada Boosaaso waxaana xaafadaha xabadda ka socota ka qaxaya dadka shacabka oo horey halkaasi u degnaa lama oga cidda bilowday dagaalka hase yeeshee wararku waxay sheegayaan in ciidanka Puntland ay weerar ku qaadeen taliska guud ee hay'adda BSF halkaas oo ay isku aruursadeen ciidanka BSF dagaalkan ayaa saameyn ku yeeshay xarunta ciidamada BSF madaxtooyada Boosaaso iyo aagaga u dhow iyadoo ciidamada dagaalamaya ay yihiin kuwa aad isugu dhow difaac ahaan ciidamada BSF ayaa la sheegay inay duqeyn xoog leh u geysteen xarunta madaxtooyada Boosaaso taas oo keentay inay isaga baxaan ciidamadii daacadda u ahaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ee halkaasi ku sugnaa waxaa la soo sheegayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay iska horimaadka socda welise lama oga khasaaraha dhabta ah ee soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamaya wararka laga helayo deegaanada ku yaala xadka Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeeyay ay Kenya soo dhoobtay ciidamo dheeraad ah oo sugaya amniga inta lagu jiro maalmaha dhamaadka sanadkan 2021 booliska Kenya ayaa shaaca ka qaaday in la geliyay heegan buuxa sida ay uga hortagaan suurtagalnimada weeraro ay fuliyaan xoogaga Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya Kenya ayaa sidoo kale u yeertay askarta fasaxa ku maqan si ay dhankooda qayb ugu noqdaan dhaqdhaqaaqyada cusub ee haatan ka socda xadka labada wadan ciidamada ayaa bilaabay howlgal cusub oo loogu magac daray sugidda nabadda maalmaha dhamaadka sanadka sida uu shaaca ka qaaday taliyaha booliska ee dalka Kenya oo ugu baaqay shacabka iyo ciidamada inay muujiyaan feejignaan dheeri ah sidoo kale jidadka isku xira deegaanada ku yaala xadka ayaa laga bilaabay baaritaano dheeraad ah oo lagu hubinayo gaadiidka sida looga hortago weeraro dhabagal ah oo ay mar kale Al-Shabaab ku qaadaan dadka isaga kala gudba ismaamulada ka jira halkaasi arrintan ayaa ugu sii daraysa dhaqdhaqaaqadii hore ugu jiray xadka Soomaaliya iyo Kenya ee Al-Shabaab ee ciidamada Kenya marar kala duwan isku farasaareen gobolka waqooyi bari ee Kenya dadka deegaanka ayaa dhankooda waxaa soo wajahday cabsi xoogan oo ka dhalatay xaaladaha amni ee soo kordhay iyo ciidamada haatan la geeyay xuduudda si kastaba muddooyinkii u dambeeyay kooxda Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarada ay ka fuliso gudaha Kenya kuwaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
Yemen. Diyaaradaha dagaalka ee xulafada Sacuudiga oo fuliyay weeraro cirka ah. Diyaaradaha dagaalka ee xulafada Sacuudiga ayaa fuliyay weeraro xagga cirka ah taas oo ay ugu yeereen bartilmaameedka militariga ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Sanca ee dalka Yemen. Sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda ee Sacuudiga, dagaalyahanada ayaa duqeeyay 6 goobood oo ay ku bartilmaameedsadeen garoonka, kuwaas oo gacanta ku hayaan saraakiisha fallaagada Xuutiyiinta oo garab ka haysta Iiraan iyo sidoo kale qalab loo adeegsado howlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Saraakiisha fallaagada Xuutiyiinta ee gudaha ayaa sheegay inay hakiyeen howlgallada garoonkaasi diyaaradaha. Intaasi waxay nooga dhan warkii ood kala socoteen Aligo Production.